برجع برسا واحد سمي أنا سمي البع ما يشغلها شمال إيرلندا شغال لو قادني تضيع لا تاني اللي حلا تمر وقوي نقضي الإنجليز بس كرر موقتها كده كل هذا كوفر الطلياني يندلدل يشرب منا نقول أنا متكون بين مقطوعة هاي بتقرني واحد هاي يسفع بالله شرح دودا الأولى والماي لكن أنا هاي بتقرن وحياها دليل وحكم ده قميستها نويبي ولو متكون وحن بينويبي تلياني ما ينوي إنجليز كحلا إنه يحسكوا بابله سبر سيرفن فعلي يحبوا ليه مركا منع هدينا أمانة لكن أبو داما تريس تدك حب برا تليانو مركولي مركي سهرة فشيستوها كسيليتها ننام ككلي مركا سوء عبريو تدك قبل نودون كا نرد فيسك قبيلك آد بوجدي عقل هذا العقبة اللوقري تدك ضياشة هوسا ميدهدو حق تدك قبل نودون كراعه mid kale lagu sameeyay xisbiyada Bartaliyanka lacag baa la siinay marka horta kala burburka halkaas ay ka soo bilowdaba qoladii meesha timi SYL hayb guud dadku wadaagan ma dhisin iyagu markay yimaadeen qabiil bay noqdeen qaybtood intooda badan dooda ah halyeeye ma la dhisi karaa aan waxaan qabaa dawladda dhisi karta dad waxa ma sameyn karo xagga laga dhisaa manhajka lagu daraa dadka hoos wax loo soo baraa afraad shanaad hadii la yiraahdo cadda waa leaderkii dalka hadii la dhaho dawladgiisa soo haysanaya laakiin hadaba loo sheeginba ana caddiin madaxweyne dalka ahaa ninkii ugu horeeyay madaxweyne noqdo ahaa xukunka sidiis fula ku riixi xil afrikaanku aan xukunku isku wareejin waa ku abaway qaadanay waligii waxa uu ahaanaya jamkaniyada cadda ka fiicnaa sida runta hadii la eego jamkaniyada muxuu nin wuxuu ahaa markay xukunka noqotay muddo dheer iska joogay xisbigiisana iyo gumaystaha hoosta kaga jiray hada cadda xukunka qofkii ugu horeeyay oo Afrikaan ah oo ka hadla khudbadiisa unity union markuu ka hadlay erayga soo qaaday dimuqraadiyad waa iyo xukun isku wareejin nabad waxyaabaha erayay unique ilaahid oo in Soomaaliya taariikhda Cabdi Samantar bug dhan ka qoray halyeeyada hay oo soo koobay halyeeyada kale Soomaalidu aad u daacad waxa ka mid ah Michael Maryam Soomaalida hadii dadka la weydiiyo dad badan laga wax akhriyaan laakiin inuu ku sheegaan baba hawla wax kale ma kala baraha kii Kristianka aan ka daaway wax saxana ma aha kuwa badan hadda magaciisa weyn la sheegay wax ka qiimo badnaa way wax ma yaqaan soo wax u yaqaan doodaha narrative-iska iyo kale la tagay soo qorjay sayni Alex Salon hotel kan ku yaal Karachi dalshido Triyaan wala hanjir Soomaalidu loo ogolaan inuu galaan labadooda maadaama baasboor magacyo kala leh ay laayeen dooda for power commissionska ka dhex socota iyo luqadina way yaqaanaan niman cadaani iyo markii wax soo bartay